say garanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi isoo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiyaha ma garanay nebiga sal alla alay slam magaalada madiina wuxuu u soo galay awrkaa inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaabuu nebigu degdegay maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan horey lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabuu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinaya markaabuu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee soonigii kale iibsanay ma ninkii reer baadiyaa yidhi gamaad iibsan markaabuu nebigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaabuu nebigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiine o dhan baa ku soo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi